idinkii ayagu intaa kala maqantihiin nololi ma jirto wax xigmad oo imaanayaan ma jiraan noloshu laandheernimada aan idin sheegayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa reer hebel aan Hollandeer ma hasaas laandheernimadu waa relationka aad mujtamaca la leedahay qofka kale intuu ka macaariif iyo xiriir badan yahay uu ka laandheersan yahay galabtu waxaan rabaa inaa xaq ogaataan inayna dardaarana iga tahay soo koobinina yaan leesi soo koobin inta waxaan rabnaa gogol dib arrimahan inuu saddex qaybood inaan idin cadeeyo gogol dib heshiisiin inaan rabnaa inaan dhigno safarka uu ka hadlay saraakiishu ay ka hadleen oo hay'adda saldhigan iyo arrimo kale aan rabnaa in ay naga caawiyaan qodobka saddexaad oo aanu nimidna waxay ahayd xil wareejinta saddexda qodobaan maanta weyn waxa ugu muhiimsan aan idin sheegayaa waa nabadda waa inaad la heshiisaan dadka deriska idila ah beledweynena waad ku wada nooshiin intana waad ku wada nooshiin waxagee loo kala maarmayaa wiiliga abtigiisaa tihiin dad macaariifo intaasoo saniyo isla soo noolayaa tihiin qolo saaka inta sun lagu buufiyo dalka laga bixinayo ma jirto miyaad maqasheen qolo Soomaaliya oo inta qolo kale ku duushay ay qabsatay ay wili degan tahay miyaad aragteen dagaal sokeeye meeshuu ka bilowdo ku dhamaadaa wax kala qabsadaa waa dawlado qabiil ma qabsan karo mar haddayna aan la qabsan karin maxaa loo wiil beelayaa ma la heshiiyo ma nabad ugu wada noolaado nimanka degan deefooyi adinka iyo dhulka kabcan leey waa dagaalanteen oo isku baaba'deen maanta maxaa macaash leeyahay wax macaash leeyahay ma jiraan haddaad maqashaan dagaal dhacaya annaga guulaysanay guuli ma jirtay khasaaraha kala badan dagaal waxba faa'iido lagama helo guulna lagama helo laakiin khasaaraha kala badan kuwana 50 ka dhimato kuwana 20 markaas wuxuu leeyahay waan guulaystay war ma guulaysan khasaaraha un baa kala badan yaa nin walba waa khasaaray laakiin khasaariya kala batay bas oo intii khasaare aan raadinay haddaan faa'iido raadino aniga principle-kayga aan idin sheegayaa principle-kaygu waa inaan toori la qaadan toori qori iska dhaaf dhulkaan aniga ale iyo halkan soo mari kartid iyo inta badigi kartid waxa keenay waa nabad darrada hadday nabadi dhacdo Soomaaliya oo dhan inta yaro banaanka ku filan abeero ugu filanba waa Soomaaliya oo dhanba intaas ku filan oo loo maalgeliyo nolol iyo mashaariicna waa la helayaa nabadaas inaan gogasheeda dhigaan rabaa oo aan furo u noqdo adinkuna dadkii ka taliyaatiin inaad ka talisaan aan rabaa ila qaadaan والله لا قاعد نبضاس هذا دم هاتنتي نبضا ما لا قاعد نبضا ما لا قاعد هذا دم هاتنتي قضب كاس دان سو خيرو waxaan rabaa xilligii alayhi salaam nabi ciise ayaa saddex nin la soo tagtaaleen ayagoo meel lugeynay waxay arkeen dhagxaan meel taalo nabiga weydiinayna waxaan maxay waa dheeman oo dahab waa dheemo oo maan guranayeen alaabtan ma yiri aniga nabi ma qaato nolol iyo dheeman iyo dahab ma qaato annaga qaadanayna haddaad qaataan waad iga haraysaan waa ka harnayeen wixii bay gurteen wiiska tagaasay saddexdii waa soo qaateen way soo lugayeen mudday soo socdeen markii magaaladu meel u dhow yimaadeen waxayna waxaan haddaan maalin cad la galna magaalada waana laga xoogayaa halkan aan maanta joogno caawaan gelaynaa magaalada nin bay dirsadeen cunto u doona ninkii markuu tegey labadii nin waxay ku showreen labadii nin waxay ku heshiiyeen waadeer dahabkan anigu nagu fiican yahay ninkan maan dilno markuu noo yimaado hebelow markuu noo yimaado adigu la hadal anna halkaasaan toori ka gelinayaa haagaantaana waa ku ridaynaa
hoosta dahabkan labadeena qaybsanayna macnaa qaybtii saddexaad oo asuu qaadan lahaa ayaa laga dilanayaa asaguna wuxuu soo go'aansaday inuu raashinka asagu xagga ku soo cuno labadoodana sun ugu soo daro ay raashinka markay cunaan ay dhintaan wax isku qaata asagu waa soo qaaday raashinkii kiisa xaggu ku soo cunay raashinkii soo qaaday nimankii uu keenay hooyo raashinkan cunaa raashinka intaysan cunno waa ballansanaayeen tuuridii baa la geliyey haadaantii lagu riday raashinkii cunan ayana waa dhinteen nabi ciise meeshu wuxuu soo maray saddexdii oo rawaxday iyo dahabkii meesha yaala adduunyo inaysan macna lahayn meedin muuqataa yaa wax qiimaa inaysan ku fadhiiso idiima muuqato qof kasta dadku asagoo saa u dhooban ayuu soconayaa labadaada mitir horta qof walba waa halaynin aniga idila hadlaya waxaan u jeedaa qisada u soo qaatay nabaddu adduunkana faa'iiday ku leedahay aakhirana faa'iiday ku leedahay haddii maanta beerta ugu weyn bankan oo dhan adiga qof shakhsiya la siiyo waxba ku tari mayso dahabkii lagu sumoobo kale noqonaysaa wax macnaha yeelanaysaa ma jiro adoo aan 2 hektar ka isticmaalin oo intii kale kayn tahay ee waqtigu ku imanaya dhibaatana waa ku gashay qof kasta waa inuu ku xisaabtamo waqti fursadda uu heli karo aniga hadda meeshan maanta joogno siyaabo badan oo kala duwan aan ku soo maray anoo yaro kureey waa soo maray anoo ciidanana buurahan aan saarnaa jiray oo halkan waagii dee inkaartu dhacday sirraalana waa saarnaa jiray burdarmeedna waa saarnaa jiray anoo si kalena waa soo joogay maantana waa joogaa yaa waxaan u jeedaa marxaladaha adduunyaduna waa noocaas waxaan rabaa in aan la fiiri qof fiican waa noocee qofka fiican keewa waa markaan aniga adiga xoolo naga dhaxeeya anuu ku tagrifalo ee aad ii sabarto ee shaqo naga dhaxaysa anuu aan iska sixdo adigu qabato ee aad ii sabarto ee aan hadal xun ku iraahdo ee adigu aad ii sabarto odan ii jawaabin markaasaa adiguna nin fiican tahay aniguna nin xun ah war ilaahay baan idinku dhaarsheeye reehbel baad la dirtoon reehbel aad la dirtoon reehbel aad la dirtoon reehbel aad la dirteen way sognahay kulli mid ka gal daran yihiin yaa aan gaabta rabbi sul hadalne jibkooda naga ka gardar waa naga galdaray may nati maya jibkooda naga ma naga galdar inta soo bini aadan oo naga baba galdarnaa kartaba idin kama galdarnaa karto inta soo bini aadan waxaan rabaa aqligu inuu shaqeeyo maskaxdii horo haddii qof ku qaldan yahay ama ummadda meeshaas ku nool ee qaldan tahay haddaad wax dhaanto waxaa la rabaa maskaxdooda mid ka sarraysa inaad la timaado markaasaad qof fiican ama reer fiican aad tahay isu soo uruuri socodkeeda xilwareejintii waa inoo dhacday sarfaygii kale hay-adda iyo saraakiishaan kuwada soconaana waa dhammaatay qodobka taagan ee dhammaystirka u baahan wakhtiga alla ugu talagalowna qabsoomaya ma qorshe li'in oo wakhti uu qorshe noo leeyahay waa jirtaa laakiin tii allah ka weyn waxaa galabta dardaaran noo ah maskaxdeenna inaan dalleed ka nidhaahdo hebel riix iyo hebel riix iyo ree hebel riix maskaxdeenna inaan ku shubno oo aan ka buuxinno war see loo noolaadaa colaadi nolol maahee see loo macaashaa colaadi macaash maahee seen wax u barannaa iskool iyo ilmo iyo nolol iyo environmentii qurxan aan uga fakernaa colaadi male intaasi berisi bilkeenu kaama yahay galabta yaa shirkina waa noo xiran yahay